Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Khalid Yunus Usman, and you are watching Khaludi English Updates. Today's lesson, casharka maanta aynu dhiganaynay, is about wuxuu ku saabsan yahay the indefinite articles are iyo an. The indefinite articles, artikelada indefinite-ka ah, are used waxa loo isticmaalaa for things waxyaabaha which are not particular aan ahayn gaar ama khaas. Usually badana the indefinite article are ama the indefinite article an is used waxa loo isticmaalaa for things waxyaabaha that were not mentioned before aan hadda ka hor la sheegin ama aan la soo hadal qaadin. Ama waxaad u isticmaali kartaa waa erayada ama waxyaabaha qofkan aad la hadlayso, the listener, qofkan ku dhagaysanaya ee aad la hadlaysi, is not familiar with, ku cusub, wax ku cusub oo kale marka aad sheegayso. Yani waad is hortimaadeen, waxbaad u sheegaysaa, waxaad u sheegayso haddii uu ku cusub yahay, waxaad isticmaalaysaa the indefinite article. Haddii shayga aad hore iskula ogtihiin ama laba jeer ama saddex jeer aad markii saddexaad markii afraad aad ku celinaysid, waxaad isticmaalaysaa markaas oo kale definite article-ka there oo cashir ka horeeyay cashirkan aan hadda dhigaya ah, waad ka helaysaa YouTube channel-ka, waad ka dayay halka insha Allah. The indefinite article-adu waxaa loo isticmaalaa for shay kugu cusub oo hadda aad marka u horeysa aad sheegaysid. Indefinite article a ama a is used waxa loo isticmaalaa before a word beginning with a consonant sound. Xiisad tan ka horeysay waxaynu ku soo dhiganay in xuruufta Englishku ay yihiin 26 xarfood. 26kan xarfood aynu u qaybinay labo qaybood, qayb consonant ah iyo qayb vowel ah. Voweladu waxay ahaayeen 5 a, e, I, o iyo u. Shanta inta ka soo hadha ayaa la yiraahdaa consonant sound. Haddii uu eraygan aad qoraysid ku bilaabmo consonant letter, letterka weli ma sii eegayna ee waxaan eegaynaa sound codka consonant-ka. Haddii uu ku bilaabmayo waxaynu qoraynaa article a, indefinite article a. Tusaale, for example, boy, boy waa eray. Boy muxuu ku bilaabmay? Wuxuu ku bilaabmay b. B waa maxay? B waa consonant letter, consonant sound-na wuu wataa. Haddii uu ku bilaabmo eraygu xaraf consonant sound wata, waxaynu ku qoraynaa meesha consonant, waxaan ku qoraynaa meesha indefinite article a. A boy, a boy. Cat, cat waa bisad. Cat muxuu ku bilaabmaa xarafka c. C waa consonant letter. Consonant letter haddii uu ku bilaabmo eraygu waxaynu ku qoraynaa a cat, a cat. Dog, dog waa ay. Dog muxuu ku bilaabmaa? Dog wuxuu ku bilaabmaa xarafka consonant d. Haddii uu ku bilaabmo consonant d, waxaynu ku daraynaa indefinite article a dog, a dog, a dog. Mirror, mirror wuxuu ku bilaabmaa m. Mirror, mirror wuxuu ku bilaabmaa consonant letter m. M maadaama uu ku bilaabmo waxaynu ku daraynaa a mirror, a mirror. Haddaba macno ahaan haddii aynu macnayno indefinite article-ka a muxuu u yaalaa? Indefinite article-ka a macno ahaan wuxuu u joogaa numberkan 1. Marka aad leedahay a boy, waxaad leedahay one boy.
marka aad leedahay a boy waxaad leedahay one boy. marka aad leedahay a cat waxaad leedahay one cat. marka aad leedahay a dog waxaad leedahay one dog. xarafkan muxuu u yaalaa one. mirror mirror muraayad. a mirror hal muraayad.